البول في البيت جالسا غريغا ان لو كاجي كارو marka fadhi lagu kaajayo marka wuxuu kala qaadaya nabi maxamed magaalada iyo guriyaha joogay musqulaha fadhi ku kaaji jiray hadii laakiin banaan uu tago waxa dhacday in istaag uu ku kaaji marka wuxuu kala qaadaya banaanka iyo musqulaha marka waana jamac wanaagsan oo ka fiican raga qaar kood isku dhibay marka al-imam la yatasawwar ta'aruban bayna al-hadithayn hadithka Aisha diiday nabigu inuu istaag ku kaajin iyo hadithka Xudayfa sugahay wax ta'arud kama dhaxay hada fi sahara wa hada fi al-bunyan baasagu leeyahay Aisha waxay ka warantay guriyaha nabiga hawshu ku sameyn jiray musqulaha Xudayfana wuxuu ka hadlay xilli uu nabiga raacay banaan asagoo nabigu taagay inuu ku kaajin al-bawl fi al-bayt jalisa أخبرنا علي بن حجر الياس السعدي قال أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي عن المقدام ابن شريح عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم روحي إذين شاقة أحد إذين شاقة يبتلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما نبغي استاكوك جاي عدي إذين كشا كيسا فلا تصدقوها الرومينين يتريها كدا كيساننا ما كان صبهم ما أهن يبول كيكا جاي إلا جالسا نبغي فردن بكوكا تتريها وحكاري على كدا كيسانين الكاسو مركب مري شرط النسائي أن صوشا جني هاو والبو كشة وفي سنن كيس مفتبها حقنا وسن كهذ لين إنه تقي هاي حديث سنة الحجيسان هي النسائي قوابا ونيري مركز شريك ابن عبد الله النخعي القاضي نسيد اللغة ضعف بكجرة أصدق النسائي الشريك مروح كل ليس بالقوي وحين صومر ذهب من المقيضة وكل شيء رحمة الله تعالى عليه قول النسائي ورجل كيد هذا ليس بالقوي معها جرح مفسد او مركا روحي داقدا كساري سدا درت الكتاب النسائي الجرح والتعديل وحاكيم صحيح بعده كسو غورجين انه كتاب ما هينه ليس به بأس روى عنه ابن المهدي شيء ابن عبد الله النخعي القاضي وحده بمال يعني حديث كيسو وفي مرتبة الاحتجاج انت صدام بهدي انفعه ويدو حديث سيس اسوغان yahay maxay yeelay shariik ibn Abdullah an-Nakha'i al-Qadi waxa mutaabicay Sufyan ath-Thawri عن المقدام ابن شريح وحان حديثك اسغو وريه احمد بن حنبل في مسند ابو عوانة في الصحيح حاكم في المستدرك وحاكلوا متابعي إسرائيل ابن يونس بن اسحاق السبيعي عن المقدام ابن شريح عند البيهقي في السنن marka xadiidku sidiisu u sugan yahay marka laguna qabsan karo xadiidku shardiga ma waafaqsano imaamka umuna Aisha radhiyallahu ta'ala anha waxay ka warantay cilmigeedii oo nabigu intuu guriga joogo in uu fadhi ku kaaji jiray saxaabigana wuxuu ka waramay hawsha asagoo arkay idan isku cilayn maayo hadii aad sidii nasaa u kala qaado bayna as-sahara iyo wal bunyan waa mas'ala kale oo imaamku uu tilmaamay wax dhibana ma laha arabtuna waxa la sheegaa sidii Shaafici uu soo guuriyay qeybkiiba inay aaminsanaayeen istaagoo lagu kaajo wuxuu daawo ka yahay dhabar xanuunka kaadi mareenka iyo ku dhaca xubnaha qaranka meelaha ka yimaadaan iyo dhabarka iyo infekshinka badan iyo waxa lagu daaweeyaa in istaag aad ku kaado wayba kaadi xoog badan marka wixii dhan ba israacaan way qabeen oo dhaqanka waa sheegi jiray ma aqaan marka dhaqaatiirta jooga waxay hawsha ka qaba war oo maali marka ciladaas keentay nabigu inuu istaag ku kaajo dhabar xanuun buu qaba marka nabigu istaasa uu sameeyay bay kaleeyeen xadiidka Xudayfa riwaayadna waxa ku yimaada nabigu inuu nabar xagasha uu kaga yaalay oo marka sida darteed uu la fadhiisan waayay